shirweynihiisii oo soo gabagabowaya shalay taariikhda ayay si wanaagsan inoogu gashay wixii laynaga doonayay waan qabsannay intii dadaalkeenna guddiday u taallaa iyagu hadhow sida imtixaankii la marayay dee inay marks ku siiyaan laakiin waxaan ku kalsoonnahay intii taagtayada ah inaannu ku dadaalnay inaannu imtixaankaa ka soo baxno haddaannu nahay raahilaac waxaan aad iyo aad doonayaa inaan ugu mahadnaqo oo qab cusub i geliyey dadka ku nool gobolkan awdal iyo salal iyo khaasatan magaalada boorama aad iyo aad ayay qabkaygii aniga kor u soo qaadeen iyo inta nala socotaba magaalada boorama maanta oo shirkii soo gabagaboobay shirweynihii fariin ayay boorama u sidaa waddanka intiisa kale haddaannu nahay communitiga awdal iyo salal iyo gabiley waxaannu u sidnaa fariin somalilan jamhuuriyaddeeda dadkaygii kale iyo dadka reer somalilan ee adduunyada ku nool fariintaasuna waxa weeyi waxaannu idiin sidnaa hadiyad baannu idiin sidnaa hadiyad la yidhaaho hilaac ayaannu idiin sidnaa oo keeni doonta hadduu ilaahay inagu simo nuur iyo onkod iyo ufo iyo roob iyo raxmad keeni doona ayaan idiin sidnaa fariintaasuna waxa weeyi mid ku taagan 6 qodob oo hilaac maanta doonaya inaad guntataan oo haddaad guushana siisaan doorashooyinkaa soo socda 6 qodob oonu ku kalsoonnahay waddankan inay dhanna ka ilaalin doonto oo ay aad iyo aad u hayn doonto wanaagga iyo wixii aynu soo qabsannay 30 sannadood iyo googo ah laakiin wax cusub ku dari doona haddaannu ree hilaacnahay waxaannu qabnaa anigoo walaalahay ka wakiila uma baahnid inaad urur noqotid uma baahnid inaad xisbi noqotid haddii aanad wax cusub keenayn waa inaad wax cusub keentaa annagu 6 qodob anoon idinku daalinayn oon doonaya maanta inaad markhaati ka noqotaan ayaannu ku kalsoonnahay cusayb inay keeni doonaan somalilan qodobka ugu horreeya oo la taataabtay ilaa shalay waxa weeye qodobka nabadgelyada iyo waddanka wada lahaashaha oo wada socda dad aan wada socon nabadgelyo ma heli karaya haddaanay wada socon nabadgelyadana in la ilaaliyo waayo waxaynu ku noolnahay geeska afrika oo khatarad badani ay yaallaan inaan subagaa yar aynu samaysanay ay naga kala daadan waxaynu u baahannahay nabadgelyada gees ilaa gees in si adag loo ilaaliyo taasuna waxa la socda oo nabadgelyadaas oo ay ku imanaysaa iyada oo dadku neeftooda iyo maskaxdooda iyo qalbigooda iyo shucuurtoodu ay isogoshahay gees ilaa gees taasi waa qodobka koowaad oon ka shaqayn doono waana arki doontaan dhowaan tallaabooyin specifica 1 2 3 oonu qaadi doono arrinta labaad qodobka labaad ee annaka noo ah priority noo ah haddaannu nahay hilaac waxa weeye dhaqaale dhiskuna marka ugu horraysa waa inuu noqdo mid kobcaya ingiriisiga waxa la yidhaahaa economic growth mid kobcaya sannad walba waa inuu noqdo ee aanu noqon mid wax ka sii dhacayaan dadkuna ay sii badanayaan dhaqaaluhuna hoos u sii dhacayo waa inuu dhaqaaluhu ka badnaado dadka carruurta la dhalaya iyo dadka soo koraya waa inuu dhaqaalo korisku ka badnaado haddii kale way xidhmaysaa waddadu markaa taasina waxay noo tahay annaga arrinta labaad oo dhaqaale dhiskaasi uu noqdo mid shaqooyin dhallinyarada u keena shaqooyin u qalma dad ka soo baxay iskuul sare jaamacada ka soo baxay
graduate degree sita waa in aanu keeno dhaqaale dhiskaasuna waa inuu noqdo mid dadka ku baahan oo in yari aanay lahayn amba magaalo ku nool amba daabiyad waa inay noqoto mid la wada leeyahay oo dadka barwaaqadaas iyo badhaadhahaas roobka waa inuu meel walba ku da'o yaa dhaqaalaha waa inuu meel walba ku da'o ta saddexaad waxa weeye amuurihii waxbarashada Somaliland waxyaabaha kaydka noqday maanta ee baanka inoo yaala waxaa ka mid ah dee iskuulladii oo dhib loo dhisay iyo jaamicada barigan aanu camuud ku jiray aan jiri jirin ya 30 sannadood horteed jaamicada kamay jiri jirin Somaliland maanta way ka furan yihiin gobol walba way ka furan yihiin waa alxamdulillah laakiin waxbarashadii waxay u baahan tahay tayadeeda in kor loo soo qaado inama khaarajinaysa sida imika yihiin waa in kor loo soo qaado waxaanu haynaa program step by step jaamicadahaasi sida kor loogu soo qaadayo specialization ay u yeelanayaan oo haddii aad doonayso for example inaad arrimaha caafimaadka ku takhasusto dhakhtar noqoto waa inaad camuud timaado waa halkii ugu horreysay laga furo iskuulka medicalka laga furo haddii aad doonayso for example inaad barato xoolaha arrimaha ku saabsan badaha iyo kalluunka iyo arrimaha caynkaasa ya oceanography waa in saaxil iyo magaaladii berbera halkaa loo tago specializationka haddii aad u baahan tahay inaad barato sida xoolaha caafimaadkooga looga shaqeeyo meel cusub loo keeno xoolaha sida loo dhaqo ee adduunyada looga iibiyo waa inaad magaalada Burco iyo jaamicadeedu takhasus sare ay halkaa ka gasho sidaasaan ku wadnaa arrimaha inaan dandansiyo man doonaya kor loo soo qaado oo jaamicadaha adduunyadana lagu xidho oo standardka kor loo soo qaado halkaana waxaan doonayaa inaan intaabsiiyo 3 amuurood oo waxbarashada halbowlow noqon doona hilaac marka haddii aad nasiisaan codka waxa weeye af Soomaaligii waa in dib loo qoro oo af Soomaaligu uu noqdo naxwi aw noqdo oo af Soomaaligii aw ka tagay Xasan Sheekh Muumin Allah u naxariistay af Soomaaligii uu ka tagay Cabdilaahi Suldaan Timacad af Soomaaligii uu ka tagay Maxamed Cabdillah Xasan af Soomaaligii Dhowaan uu ka tagay af Soomaaliga Ismaaciil Mare uu ka tagay Soomaalidan af Soomaaliga naxwiga caynkaas jaamicada waa in loo galo inay noqon wax suuqa lagu wadaago waa inaan noqon oo af Soomaaligu afka kale adduunyada la tartami karo waa koow afka labaadna waa af Ingiriis haddaynaan af Ingiriis caruurteenu sida biyaha aanay u cabin ma socon karina adduunyadana kama qayb gali kareen taasina waa talabaad afka carabiguna inuu noqdo afka saddexaad ee kitaabka aad ku akhrisan karto aan cidi kaaga turjumaanayn aad ku akhrisan karto anaga camuud carabi iyo ingiriis labadaba waa nagu baray kolkaan uu dhamaynay sida biyaha ayaan u shubanay adduunyada waxa nageeyay waxa weeye wixii camuud la nagu baray kaydkii halkan aan ka soo qaadnay kii baanu dib ugu noqon doonaa haddii alla yidhaa waxbarashada halkaa sare ee tayada leh waxa soo raaca waxbarashada arrinta xisaabta caruurteenu waa inay barato lagu anqariyo iyagoo yaryar af Soomaali iyo af Ingiriis iyo xisaab waa inay bartaan adduunyadan kuma noolaan karaysid haddaanad mathematics haddaanay caruurteenu rag iyo dumar haddaanay xisaab baran ma tartami karayaan waa waxyaabaha soo socda arrinta afraad waa arrintii caafimaadka Somaliland wax badan la qabay laakiin aad buu u liitaa waliba halkaad ka garanayso caafimaadku inuu aad u liito waxa weeye haweenka iyo caruurta caafimaadkooda Somaliland dumarka iyo ilmaha isku dhinta markay uurka leeyihiin waa halka adduunyada ugu liidata way ya haweenka iyo ilmaha isku dhinta markay uurka leeyihiin ay dhalayaan halkaasaad qiyaasta ka garanaysaa caafimaad darrada Somaliland taag wax badan baanu taana ka qaban doonaa haddii alla yiraahdo tallaalada biyaha nadiifta ah boqolkiiba 30 wax ka yar Somaliland ayaa biyo nadiif ah cabaa waa hodheeladan biyaha nadiifta lagu cabaa orodoo dibadda baadiyaha iyo dhulka mar iyo daabiyada biyo wasakh la cabay marka biyo nadiif ah sida dadkeenu hadday helaan boqolkiiba ugu yaraan 65 cudurrada Afrika ka dhaca way ka hadhayaan haddaad biyo nadiif ah wadanka laga helo waa hawl adag laakiin waan galinaa degdegna waanu galinaa arrinta shanaad waxa weeye arrintan dabeecadda ku saabsan environment baa la yidhaahdaa af Ingiriisiga dabeecadda ku saabsan Somaliland wuu nabaad guuraysaa wadankani wuu nabaad guurayaa calaamadihiina meel walba way yaalaan calaamadaha nabaad guurka waxa ka mid ah dooxyada oo farabata dooxyada dee dhulka maraan waan maray waxa dooxa waad yaabi doox waa habaar waayo waa biyihii oo qulqulay
oo dhulkii googooyey waxba aan ka tagin aan dhagax ahayn iyo ciid deetana badda ku dhacay kolkaas sida nabaad guurka loo ilaalinayo geeda loo beerayo dad loo qorayo lacag loo gelinayo gobol walba waan ka shaqaynaynaa waxaan soo noolaynaynaa cilmigii ay dhigeen dadkii ree magaalada la yidhaaho ku taalla boon cilmigii ay ka tegeen ree boon waxay ka tegeen muddo imika laga joogo 70 sannadood waxay ka tegeen kelmad dib loo soo fiqi doono kelmaddaasuna waxa weeye iskaa wax u qabso biyaha sida loo xidho geedaha sida loo beero ree boon cilmigoogii baan soo celin doonaa taw dambaysa waxa weeye arrintii ku saabsanayd Somaliland iyo adduunyada de halkaasaa laynahayaa halkaa cunaha laynahayaa haddaynu nahay reer Somaliland gacantaa waan iska furaynaa de waa inaan furno soo sidaa ma gacantaa waan iska furaynaa waxaan yeelaynaa hawl aan hore loo gelin oo 4 qodob ah imaka idinku daalin maayo waxaan soo dhigi doonaa marka la bilaabo de waxaan kambeynada waaweyn la bilaabo 4 qodob oon hore loo arag ayaanu keeni doonaa oo dhaqaajin doona siyaasadda dibadda wasaaradda dibadduna waxay noqon doontaa meel Somaliland ay ka hilaacdo ayay noqonaysaa wasaaradda dibadda ay ka hilaacdo waxaan hadalka ku soo gabagabayn safar cusub haddaanu reer hilaacnahay ayaa noo bilaabmaya wixii berri ka dambeeya safarkaasuna wuxuu noqonayaa bari waddankii bari in loo baxo halkaa laga bilaabo ilaa Gabiley Hargeysa halkaa laga wado Hargaabo Burco Laascaanood in Barbara halka barikii marka de noo soo duceeyo khayrka naga horeeya inuu Ilaahay nala kulmiyo noo soo duceeyo taasna waa taas arinta haweenka kelmad baan ka idhaa arinta haweenka aan ismaqalnay arinta haweenka kelmadan ka idhaa arinta haweenku ciyaar ma wadan adduunyada daris ma jiro wadan haweenkoogii albaabka ka xidhay oo guriga uu ku xidhay oo hore u socday anigu ma aqaan haddaad haysaan soo sheeg soo wada garmays laakiin aniga si gooniya arinta haweenku ii taabataa aniga shakhsi gooniya marka aniga si gooniya arinta haweenku waa si gooniya ayay ii taabataa inaynu taana isla fahmo waxaan ku soo xidhaya maqsin halkaa maanta aan joogno stageka halkaasa nin baanu ka mudan Somaliland iyo Soomaaliya ayaanu halkaa dood ku wada galnay annagoo dood reer Boorama iyo reer Awdalus magaca weyn kule taariikhna ka tagay ummadda Soomaaliyeed iyo reer Somaliland magaciisuna waxa weeye ya alla naxariistii jannaha ku hayee Dr. Ali Khaliif Gallay halkaan isku waxaan doonayaa maanta halkan inaan uga diro fariin cali isagoo xabaasha inaga hooseeya cali oo adigana ku iloobi mayno taariikhdooduna way qoran tahay halka magaalada Boorama iyo hoteelkaasina marxaati uu ka yahay qofkaad ahayd iyo waxaad gudday iyo waxaad gasho reesolna waxaan doonayaa inaan ku idhaaho cali waa naga mid cali khaliif waa naga mid de waynu dhamaynaa arrintii aan wax kale idin oran maayo aad iyo aad baan dhammaantiinba idinku mahadnaqayaa waxaan ku soo xidhi intiina da'dayda ah haddii dee weli maskaxdiinnu ay nooshahay inaan wax yar idin xusuusiyo intiina kalena bal aad dib u baadhaan laakiin waxaan filayaa inay ku habboon tahay maanta halkaynu taagannahay waa geedi dheero guri roo la degaye waa geedi dheero guri roo la degaye angela mahale dahagulale angela mahale dahagulale gulale gulalahayle garaca ciyaarta gidigiin adkeeya angoyne gaca ka siiya dahagulale nabadgelyo waad mahadsantiin